الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم موتانا يا رب العالمين واشفي مرضانا يا قوي الدوام. اللهم اني نسألك العفو والعافية يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا يا رب العالمين. الحقيقة خياديدي قلمدوق إلهي وإيرمي تتشضي أو كلا نوعه oo 11 ardaa ah ayaa isugu tegay galmudug oo dhistay, waxayna maanta ku sugan yihiin hubyo. waxayna ku tashadeen inay dekedaa dhistaan. riyadaa muddo fara badan ayaan daba socday in gobolladaa dhexe dhisme ka hirgalo. waa xaruntii xoolaha nool ama berberaha laga dhoofiyo ama meel kaleba ha laga dhoofiye. khibrad baan u leeyahay inay tahay xaruntii xoolaha nool. waxay kaloo u furan tahay market ilaa kilalka shanaad ah, oo haddii ay dekedaasi dhisanto waddooyinna hesho waxay sabalay garaynaysaa ilaa herar dekedaasi. haddii khayraadkan la sheegaya ee dhulka ku jiraana soo baxo, iyaduna waa meel u dhow oo laga dhoofin karayo. dadkaa galmudug hambalyaan leeyahay. maalintii aan dhuusamareeb ku tagaayey booqashada waan ka sheekeeyey meel dowladi leedahay oo aan la bililiqaysan inaan dhuusamareeb ku soo arkay. reerihii kala duwanaa ee dagaalada sokeeye kala irdeeyeenna nin walba gurigii uu ku dhashay baa lay tusay. waan ka tegayoo waxaan tegay dhuusamareeb. waxay ii qireen annagaa jiingadahayagii kala soo baxnay, waxna laga biliiliqaystay ma jiraan. waan ka tegey oo xeraalaan tegey. anigu halkaa galmudug waa meel qof kasta oo Soomaaliya aan oran karo wariska deg inta nolosha kaaga hadhay. qodobka intaasa ku dhaafaya. federalismku wuxuu u baahan yahay marka hore noociisa in la sheego, marka labaadna dad mukawanaad ah oo kala hayb ah oo qansaxan iyo quracan ay ku waasheen ay sheegayaan kala jaad ah buu horta federalismku ku wanaagsan yahay. kuma wanaagsana qoys meel degan oo isagu isku hayb ah, oo isagu isu abti ah, oo isagu isu habra wadaag ah, oo isagu
11 reer ee aan soo sheegay ee aan ku soo arkay galmudug ee dhistay waa alaxdii dalka alaxda Soomaalida alaxda ma taqaanin waa alaxdii weeyaan had alaxda isu haysa qofka jirkiisa waa alaxdii mar labaad waxaan idin leeyahay hambaliyo waan maqlaayay Axmed Madoob oo baaxaadegaya maanta Axmed baan la talinaya Axmedow lama joogo waqtigii TPLF ay xukumaysay Ethiopia Axmedow lama joogo waqtigii Gabre uu ku laba dibleeyay Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore Axmedow waa inaad garataa Kismaayo inay Soomaaliya tahay intaa markaad garato ayaa dabadeedna danta aad leedahay aad garan qoraalka ka soo baxay madaxtooyada dawladda Soomaaliyeed ee ku saabsanaa kursiimada 2 sano Axmed bay dan u tahay waanigii sii sheegayo hadduu yeelana u daran hadduu diidana u daran laakiin probability isagay u tahay face saving nama oran kartid qaar baa tacallada ay haystee iga reeb sidii waagii Ethiopia ee aad tiri Cumar Cabdirashiid laga dhigo safiir astaghfirullah alazim wixii baa soo noqonaya wixii shalay baa maanta soo noqonaya markaas dadku allaawaya wadadada wax allaawi baa jira oo wax qora Axmed geed cidla abuu fadhiya waana qabaa inuu la heshiin doono dawladda oo xamar iman doono maxaa yeelay kulkii aan taxliil siyaasiya sameeyay Axmed geedkii uu garaacayayba horuu u garaacay geed u hadhay ma jiro Axmed soo dhowow baan leeyahay welcome qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa anigu wax badan baan dadka Soomaaliyeed ku iri dan malihidin mar haddaanu qofku la dan lahayn dee waxaa jira qof kale oo dan leh caalamkan aynu ku nool lahay meel aan laysku dilin anigu garan maayo ama waaba yar tahayba Rwanda ka dhacay Japan buu ka dhacay galaan reer Yurub baa soo maray Ethiopia Eritrea soo maray walaga wada heshii walaga wada buskadi wixii ka dhacay Soomaaliya in laga heshiiyaa wadaw oo loo baydho danta guud xaggaana xag jir waa jira xaggana xag jir waa jira waxaa soo dhamiba waa iska soo gurmayaan Soomaaliya caalamku waa inala leeyahay inaguna waa la leenahay
African Union keenu ka mid nahay European Union jaamacadda carabtaynu ka mid nahay ururka islaamkaynu ka mid nahay United Nations ayaynu ka mid nahay waxa oo dhan macnaheedu waxa weeye waxbaynu wada leenahay marka haddii aynu garan weyno danteena wallayno garan cidda hadda mustaqbalkeedu ifayo dee waa 10 jirka iyo wixii ka weyn ilaa 40ka waxaan kale ee hadda murmaya koodiina way soo cuneen kii 10 jirka ay dhaleenna inay ku darsadaan bay rabaan war ha yeelinina heshiiska Jabuuti heshiis fiican buu ahaa waan soo dhaweynayaa niyad sami iyo daacad waa in lala yimaadaa waa go'nay dee wargo'i weyde Soomaali weyn waa muqadas dee warqaar mid baa maqan labadii gobol waxaa oo dhan ka kaalaya meel kale isugu kaalaya الحقيقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته